ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada birmadka ee booliiska ayaa saaka howlgalla ka fuliyay 16 goobood oo ka mid ah degmada Ceel Afweyn oo dhawaan ay diriri ku dhex martay laba beelood oo walaalo ah oo wada daga deegaanada hoos yimaada degmada Ceel Afweyn. howlgalladan waxaa hogaaminayay abaandulaha labaad ee ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya guuta Saleebaan Barra Geesood, taliyaha ciidanka birmadka ee booliiska gaashaanle sare Cabdi Axmed Tiir iyo taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Faysal Cabdi Bootaan. waxa kale oo ku wehelinayay saraakiil sare oo ka tirsan labada ciidan. sidoo kale waxaa ciidamada barbar socday wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, isla markaasina ay ku wehelinayeen barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro, wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaji Ismaaciil Bandare, wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Hinda Jaamac Xirsi, wasiirka ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo wasiirka kalluumaysiga Xasan Gaafadhi iyo wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Maxamed Muuse Abees. sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wafdigan Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax iyo Axmed Yuusuf Yaasiin oo hore dalkan uga soo noqday madaxweyne ku-xigeen. ujeedooyinka howlgalka ciidamada iyo kormeerka wasiirada ayaa daba socday hubinta in la fuliyay go'aamadii nabadeed ee ka soo baxay shirka nabadeed ee loo fadhiyo degmada Ceel Afweyn. sidoo kale waxa uu waafaqsan yahay howlgallada ciidamada qaranka iyo booliisku qodobada 123 iyo 124 ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waajibinaya ciidamada qaranka iyo booliiska waajibaadkooda qaran. deegaanadan waxaa ka mid ahaa deegaanka loo yaqaano Beerweyso, Garab Caade Jaw, Xamil iyo God Waraabe. sidoo kale waxaa ka mid ahaa Dhabar Mamac, Gal iyo Gac, Laas Dhoomare, Dhidinka, Fadhigaab, Ceel Nimcaan, Ceel la helay, Siin Caro iyo Siiga Dheer. mas-uuliyiinta xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hadlay qaar ka mid ah deegaanadii ay kormeerka ku soo mareen ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. waanu idin aragnaayo dara qaliilaba ku hadhay meesha magaalada way camiraan jirtay berigii wadanku hagaagsanay nabadda ahaa. maantana waad aragtaa inta joogta waa dhibaatada ay leedahay colaaddu ay ka mid tahay. waxa la idinka baahan yahay arrintii meel wanaagsan bay maraysaa, nabadda way xidhmaysaa. xoogii xukuumad iyo dad iyo culimo iyo madax dhaqameedba waxaynu saaray in arrintaa la soo afjaro. ciday ka afjarmaysaana waa idinkaa ka koowa. binaadmigu waxa qura u baahan yahay waxa weeye inuu ku noolaado waa nabad. haweenka halkan jooga iyo carruurtani waxay u baahan tahay nabad. in ragoona waxaad ku ciyaaraysan waa carruurtiina nabadeedii. khasaaro badan baa ka dhacay colaadan labadiina qoys walaalaha ah. maanta meel fiican bay maraysaa. waxaynu u baahannahay in nabadgelyada qof waliba goonidiisa uga shaqeeyo, deegaan waliba goonidiisa uga shaqeeyo. deegaamadana ku kala maqan tihiin ee faraha badan leh iniba meel u goosantay waxay u baahantahay in dadkii uu wada noolaado, inuu dadku wada dego. maatada iyo carruurta waxaa loo baahanyay in dhibta laga daayo. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaji Ismaaciil Bandare iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed. halkaa waxaanu idinku nimaha maanta nabadgelyada halkaa la xidhayo maanta ina aqbashaan, ina ku shaqaysaan, ina qofka allaaliyo qofkii dumarkuna waa weydin maqlaya. qof allaaliyo qofkii dawladda ka hor yimaada ee askarta iyo nabadgelyada ka hor yimaada bartaas ayadana ay kaga taala. hadal kale ma leh, dhul ula dhici maayo, la isu tirsan maayo. hal bartaas wallahi laga wada tooganay. meesha wada degantiina waa ku qasbantiina wada deganaataan. dhulka dhiiga lagu daadiyay haddaan laga toobad keenin oo ilaahay loo laabanin oo istighfar loo oran ilaahay uu toobada u aqbalay dhulkaas dhulka ahaan maayo. nicmadana hayn maysaan. abaara soo marteen, balaaya soo marteen, dhibaatooyin ma soo marteen. markii ilaahay roobka idin shubayna way idinkaasoo way isku bilowdeen.
walaalayaal ilaahay loo noqdo subxaanahu wa tacaala nafsiina u tudha aakhiradiina u tudha adduunyadana u tudha mudane cabdiraxmaan ow cali faarax iyo axmed yuusuf yaasiin oo iyaguna la hadlay shacbigaasi ayaa waxa ay dardaaran iyo fariinba ay u direen sidii nabadgelyada iyo amniga qaranka looga wada shaqayn lahaa waxaad yeelaysaan nabadgelyadu halkaa ta lagu unka maanta insha allah si wanaagsan bay ku dhammaan doontaa dadka la doonaya inay fuliyaan waa dhallinyaradiinna iyo odayaashiinna waardantiinna ku jirta nabadgelyada darada halkan taalli inay idinka keliya habar lama khusayso ma khusayso idinka keliya Soomaaliland oo dhan bay khusaysaa waxay ay culimo lahaayeen ceelaf weyn bay maanta joogaan xeerbeegti waxay lahaayeen halkaasay joogaan madax wixii ay lahaayeen halkaasay joogaan hadday xabad damba jabto cidda jabisay gunta laga maraya tasbaan anigu idin sheegaya taa ogaada isu sheega reerka dambe jabiya ciyaar loo soo bixin ciyaar looma iman qaar ka mid ah dadweynaha deegaanadaasi oo la hadlay wafdiga uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa hadda sidaa noo leynaysaan oo na xakamaynaysaan waxba ma dhicin waa dhameeyay cabdicasiis maxamed maydhax iyo axmed jaamac faarax telefishinka qaranka Soomaaliland ceel afweyn